Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada channelkan Cadnaan Yaasiin warbixinta maanta waxaynu kaga hadli doonaa dhaqamada iyo caadooyinka kala duwan ee uu leeyahay guurku ee ka jira adduunka. Waxaan kaa codsanayaa daawada inaad muuqaalkan share garaysid. Hadday tahay markii kugu horeysay ee aad na soo booqatana subscribe channelka noo saar. markale daawadayaal kusoo dhawaada channelkan Cadnaan Yaasiin warbixinta koobaad ee kaga hadli doono muuqaalkan maanta waxa weeye guurka dalka China. Dalka China waxaa ka jira caadooyin kala duwan oo guur ah. Waxaanu soo qaadi doonaa kuwooda ugu xiisaha badan. Ka koobaadi waxa weeye dhaqanka amba caadada guurka ah ee la qariyo caruusada iyada oo meher ku dhacayo labada lamaano oo is aragin. reerka inanta ayaa waxay qurxinayaan caruusada kadibna qol ay fadhiisinayaan wayna ku soo qufulayaan. furaha qolka ayaa loo dhiibayaa ninka ay u doonaneen ama u mehersaneed, kadibna ninka ayaa qolka furaya iska soo eegaya gabadha. haddaba waxa xiisaha leh waxay tahay haddii uu ku qanci waayo quruxdeeda uu iska soo noqonayaa, uu iska soo baxayaa, dabeetana guriga uu ka tagayaa. xagaas ayay inanta lagu guursaneen oo ay inan ahaanaysaa ilaa inta uu nin kale u imanayo. dhaqanka labaad amba caadada labaad ee dalka China ka jira waxa weeye daawade. dhaqankan ama caadadan waxa uu ku faafay dalka China, khaas ahaan waxa adeegsata qabiilka dalka China dega ee loo yaqaano taboo. haddaba dhaqankan ama caadadan ayaa inanta doonaysa in la guursado waxay koraysaa geed dheer kadibna laan bay ku fadhiisanaysaa. ninkii ka hela inantaa geedka kortay ayaa koraya. haddaba wax xiiso leh waxay tahay in family-ga ama reerka inantu ay geedka hoostiisa taagan yihiin oo ay u diidayaan ninka inuu koro, oo intuu geedka korayo ul bay la dhacayaan, way shiidayaan, way hadimeynayaan. ninkii intaa u adkaysta ee geedka shaafaajug ku koraa ayaa inantaa guursanaya. sidaana waxa uu ku kasbaday kalsoonida reerka. qodobka labaad ee aynu ku eegi doono warbixinteena daawada waxa weeye guurka dalka Indonesia. qaar ka mid ah qabiilooyinka dega dalka Indonesia ayaa waxay uga digaan caruusada inay dul socoto dhulka maalinta arooskeeda, waxaana qaada aabaheed oo geeya guriga ninkeeda. sidoo kale waxaa jira caadooyin ama dhaqamo kale oo ku faafay dalka Indonesia oo ah in ay caruusadu mariso hilkaheeda midab madow. dhaqankan ayaa waxa uu ka jiraa jasiiradda Jawi ee ku taala dalka Indonesia. dhaqankan ayay caruusadu hilkaheeda ku midabeynaysaa midab madow, kadibna waxay dhunkanaysaa oo meedhaysaa cagaha ninkeeda, taas oo muujinaysa inay daacad u tahay oo amarkiisa qaadan doonto oo ay u hoggaansami doonto. qodobka saddexaad ee aynu ku eegi doono warbixinteena daawada waxa weeye guurka dalka Hindiya. daawadeed guurka dalka Hindiya ka jira guurarka kale ee adduunka ka jira uu ka duwan yahay, oo labada lamaane qoysaskooda ayaa dabaaldegaya iyaga oo isweydaaranaya hadiyado iyo xalwado. badankana xafladda aroosku waxay ku bilaabmataa xaflad guriga lagu dhex qabtay oo ka horeysa xafladda weyn ee arooska. caruusadana waxaa lagu qurxinayaa dahab. maalinta arooskana labada lamaane waxay isweydaaranayaan ubaxyo ay isku gelinayaan qoorta, taas oo ka turjumaysa inay is aqbaleen oo ay rabaan inay nolosha ku midoobaan. qodobka afraad uguna dambeeya warbixinteena daawada waxa weeye guurka dalka Japan. caruusada ayaa waxaa gashanaysaa dhar loo yaqaano kimono oo cadaan ah, madaxana waxbay saaranaysaa. haddaba sida ay aaminsan yihiin dalka reer Japan, sababta ay u qarinayso madaxeeda oo wax u saarayso waxay tahay in caruusadu ay ka qarinayso hooyadeed. oo sida ay aaminsan yihiin dalka reer Japan, hooyada caruusada dhashay way ka hinaasaysaa maalinta arooskeeda.
sidoo kale waxay yiraahdaan waxay ka turjumaysaa in ay diyaar u tahay gabadh raaliyo ah. intaa kadib labada lamaane ayaa cabaya sharaab dhaqameed loo yaqaano siiski si ay u caddeeyaan in ay labada lamaane nolosha ku midoobeen. haddaba daawada waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like siisid, qodobka kugu la yaabka lehna aad ku soo reebtid commentiga. haddii ay tahay markii kugu horeysayna inaad subscribe noo saartid channelkan Cadnaan Yaasiin. waad mahadsantihiin.